wanaagsan dhammaantiinba waa barnaamijka qubanaha maanta oo qodobada aan idinku hayana ay ka mid yihiin wararkii ugu dambeeyay ee dagaalo beeleedyo ka kala dhacay gobolada Galgaduud iyo Shabeellaha Dhexe halkaas oo 10 qof ay ku dhinteen dalka New Zealand oo sharciyada hubka wax laga bedelay kadib weerarkii masaajida magaalada Christchurch wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Eritrea ayaa isna safar ku jooga Somaliland wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha iyo qodobo kale ayaa sidoo kale aanu idinku haynaa barnaamijkeena qubanaha maanta aan ku bilownay dagaal xoogan ayaa ka dhacay deegaanka Xeraale ee gobolka Galgaduud halkaas oo la sheegay in 10 qof ay ku dhinteen dhinaca kale degmada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa xaaladdu maanta ay deganayd kadib markii halkaasi ay shalay ka dhaceen dagaalo beeleed oo dad badanina ay ku dhinteen haddaba wararkii ugu dambeeyay waxa inoo haya wariyaheena Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane Xuseen maxaa ugu dambeeyay wararka waa maasantahay Ridwan sida aad ka warqabto dagaal ayaa xalay abaar labadii habeenimo waxa uu ka dhacay degmada Xeraale ee gobolka Galgaduud dagaalka ayaa waxa uu u dhaxeeya laba maleeshiyo beeleed oo deegaanka ka soo kala jeeda dhimashadu waxay gaaraysaa ilaa 20 qof oo u badan dhinacyadii dagaalamay sidoo kale dagaalka ayaa waxa la tilmaamay inuu geystay qasaare oo dadka shacabka soo gaaray iyo waliba goobo ganacsi oo ku yiilay goobtii lagu dagaalamay xaaladda xilligan waa ay degan tahay inkastoo wali colaad raadkeedii laga dareemayo deegaanka uu dagaalku ka dhacay ee gobolka Galgaduud sidoo kale waxa ay xaaladdu degan tahay deegaanka Burdheere oo hoostaga degmada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe halkaas oo shalay ay ku dagaalameen laba maleeshiyo beeleed dagaalkaas ayaa geystay qasaare ka badan kan Xeraale ka dhacay ilaa 30 qof ayaa ku dhimatay dhaawacana waxa la tilmaamayaa in uu ka badan yahay ilaa 50 qof dagaalkaas ayaa waxa uu soo jiitamay ilaa 20 sano ee ugu dambeeyay waxana uu ku saabsan yahay muran dhul oo laba beelood oo halkaas wada dega u dhaxeeya oo xalkiisa aanan wali natiijo kama dambeena laga gaarin aad baa maasan tahay Xuseen wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Eritrea iyo wafdi la socda ayaa gaaray magaalada Hargeysa halkaas oo wada hadallo ay kula yeesheen madaxda Somaliland Eritrea ayaa sheegaysa in safarkani uu qayb ka yahay dadaal lagu doonayo in kor loogu qaado nabadda geeska Afrika Sagal Mustafa ayaa warbixintan Hargeysa ka soo dirtay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Eritrea Cismaan Saalax Maxamed kulankani oo ahaa mid albaabada u xidhnaayeen saxaafaduna dibad joog ka ahayd ayaa markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon waxaanu sheegay ujeedada ugu weyn ee wafdigani ay u yimaadeen ay tahay iskaashiga iyo xiriirka labada dal ee Eritrea iyo Somaliland waxa u yimaadeen inay iskaashiga iyo wada xiriirka dalalka geeska Afrika gaar ahaan labada dal ee Eritrea iyo Somaliland ay ka shaqeeyaan oo ay xoojiyaan sida arrimaha looga wada hadli lahaa ee aaraa iyo fikir la isaga dhaafsan lahaa ayay u yimaadeen si wanaagsan baan anaguna xaqiiqada u soo dhaweynay dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Eritrea Cismaan Saalax Maxamed ayaa isna dhankiisa sheegay ujeedada safarkiisani So we said now we have been away and now it is time for us to waatii aan maqnayne haddana waa waqtigii aanu imaan lahayn Somaliland si aan u indhaindhayno xaaladda haddana waxa aan la kulannay madaxweynaha waanu maqalnay warbixintiisa oo ahayd mid xiiso iyo muhiimadba lahayd waxa uu noo sharaxay wax walba sida dhaqaalaha siyaasadda iyo arrimaha bulshada haddana waxaanu gudbinaynaa warbixintaas mana ahaanayso socodkii ugu dambeeyay ee noocaana waxaanan rajaynaynaa inuu jiri doono mid labaad saddexaad iyo kulamo sii socda wafdigani ayaa maalmaha soo socda ku sugnaan doona gudaha Somaliland iyadoo isbedel laxaad leh haddaba uu ka bilaabmay geeska Afrika ayaa imaanshaha wasiirkana qayb ka ah isbedelkaasi waana markii ugu horeysay ee wafdi noocan oo ka socda Eritrea ay yimaadaan gudaha Somaliland Sagal Mustafa Xasan Nuur VOA Hargeysa
ra-iisul wasaaraha New Zealand ayaa maanta sheegtay in golaheeda wasiirada ay go'aan ka gaareen isbedello lagu sameeyo xeerarka hubka dalkaas kadib xasuuqii jimcihii ka dhacay 2 masjid oo ku yaala magaalada Christchurch. ra-iisul wasaare Jacinda Ardern ayaa sheegtay inay faahfaahin ku saabsan go'aanadan siin doonto warbaahinta iyo shacabka ka hor kulanka xiga ee golaha wasiirada ee Isniinta soo aadan. tani waxa ay ugu dambeyn la micno tahay in 10 maalmood gudahood kadib ficilkii argagixiso aanu ku dhawaaqi doono isbedelada aan aaminsanahay in bulshadeena ay ka dhigi doonaan kuwa amni dareema, ayay tiri ra-iisul wasaare Jacinda Ardern. waxaa kaloo ay sheegtay in dhammaan meydadka 50 qof ee lagu dilay masjidka lagu wareejin doono qoysaskooda ugu dambeyn maalinta Arbacada si loogu aaso si waafaqsan shareecada Islaamka. madaxa baarista dembiyada dilka ee dalkaasi Deborah Marshall ayaa sheegtay in xafiiskeeda uu sida ugu dhaqsiyaha badan uga shaqaynayo in meyd kasta lagu wareejiyo qoyskii saxda ahaa. ma jirto wax ka xun in meydadka la isku qaldo oo meyd lagu wareejiyo qoys aan kiisa dhabta ahayn, ayay tiri. in ka badan 150 qof ayaa ku dhintay, boqolaal kalena waa la la'yahay kadib markii duufaanta Idai ay ku dhufatay meelo badan oo ka mid ah koonfur bari Afrika. magaalada Beira ee dalka Mozambique ayaa ah meesha ugu daran ee ay dabaylahaasi ku dhufteen. kooxa caalami ah oo ka socda hay-adaha Bisha Cas iyo Laanqeyrta Cas iyo shaqaalaha gargaarka degdega ah ayaa gaaray Axadii magaalada dhibka badan uu ka dhashay, sida maanta lagu sheegay war ay hay-adaha soo saareen. Jamia Lisiur oo hogaaminaya kooxda gaartay magaalada ayaa sheegay in xaaladdu ay tahay mid aad u daran, ayna u muuqato in 90% magaaladu ay burburtay. qaramada midoobay ayaa ku qiyaastay in ka badan 1 milyan iyo bar oo qof oo ku kala dhaqan dalalka Mozambique, Malawi iyo Zimbabwe in duufaantaasi ay saamaysay. ugu dambeyntiina xubnaha baarlamaanka ugu jira xisbiga haya talada dalka Uganda ayaa taageeray isku day uu madaxweyne Yoweri Museveni ku doonayo in mar kale dib loogu doorto hoggaanka dalkaasi, sida ku cad qaraar ay isku raaceen. guul uu ka gaaro doorashada xigta oo dhacaysa 2021 ayaa xukunka Museveni oo 74 jir ah waxa ay gaarsiin doontaa 40 sano, taasi oo noqon doonta mid ka mid ah xukunnadii ugu dheeraa Afrika. guddi muhiim ah oo ka tirsan xisbiga talada haya ee NRM ayaa sidoo kale bishii tagtay taageeray in Museveni mar kale uu xukunka qabto. go'aanka ugu dambeeya ee ergada xisbiga ayaa lagu dhawaaqi doonaa dhammaadka sanadkan. qoraal maanta ka soo baxay xubnaha xisbiga NRM ee baarlamaanka ayaa lagu yiri, waxaan kula talinaynaa hoggaanka xisbiga iyo xubnaha kaleba in la sii wado hoggaanka hogaamiyaha aan jecelnahay ee walaalkeen ah Yoweri Museveni ilaa 2021 iyo kadibba. dowladda Museveni ayaa horay 2 mar u bedeshay dastuurka dalkaas si loogu ogolaado in uu xukunka dheeraysto. sanadii 2005 waxaa dastuurka laga saaray qodob dhigayay in 2 xilli ka badan aan madaxweyne xilka hayn karin. 12 sano kadib waxaa laga saaray qodob dhigayay in qofka ka weyn 75 sano aanu xukunka qaban karin. haatanna waa wararkii ciyaaraha, waxaa inoo haya oo halkan ka soo jeedinaya Maxamuud Mascade oo Minneapolis jooga. wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha barnaamijkeena qubanaha maanta. gegida San Siro ee magaalada Milano waxaa habeenkii xalay ahaa mar kale fooda isku daray kooxaha kubadda cagta AC Milan iyo Inter Milan oo ah 2 kooxood oo isku magaalo ka dhisan isla markaana kamid ah kuwa isugu nacab dunida. ciyaarta dhexmarta labadan kooxood ayaa laba bariga amaba laga sareysiiyaa kulanka El Clasico ee Barcelona iyo Real Madrid. markii horyaalka Talyaanigu uu caada marayay AC Milan iyo Inter habeenka ay ciyaarayaan cidima hurdi jirin oo dhammaanba taageerayaasha kubadda cagta ee dunida kulanka way sugi jireen. cidii xalay u soo jeedana ma aanay niyad jabin oo labada kooxood waxay soo bandhigeen kubad qurux badan oo ku dhisan weerar iyo weerar celis, difaac la isuma gelin.
kubadihii waayahan kooxaha waaweynay soo bandhigi jireen ee ahayd aan badiyo oo keliya si kastoo tahaba ayaan habeenkii xalay ahaa la soo bandhigin. waa la isku raftay, waa la isweeraray, biraha ayaa la iska garaacay. waxaana labada kooxood 90kii daqiiqo ay ku kala baxeen 3 gool iyo 2 oo AC Milan lagu awood sheegtay. kulankii labaad oo xiriir ee horyaalka wadanka Talyaaniga ee ciyaareedkan ee kooxda kubadda cagta Inter Milan ay ka badinayso AC. Gattuso oo lagu yaqaanay markuu isagu ciyaarayay nin aan baqin caratama isla markaasina garoonka marba dhin ugu faagta. habeenkii xalay haddii uu kari karo dhalinyaronimadiina uu leeyahay garoonka uu soo gali lahaa, laakiin wiilashii garoonka soo galiyay uma aanay abaal gudin. 3 dhibcood oo aad ugu baahnaa kaalinta saddexaadna uu ku fadhiyay kuna sii xajisan lahaa ayay Inter Milan ka xayuubsatay. haatanna kaalinta saddexaad ee horyaalka wadanka Talyaaniga iyada ayaa sidaa ku fariisatay oo AC Milan booska waa lagala baxay. garoonka Benito Villamarin ee wadankaasi Spain ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta ee Real Betisna waxaa taageerayaal aan kuwiisa ahayn ay ugu sacbiyeen ciyaaryahan Lionel Messi oo 3 gool ka dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Real Betis kadib markii kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay 4 gool iyo 1 ku badisay. Lionel Messi waxa uu ka mid yahay xidigaha dhifta ah ee garoomada kale markay goolasha dhaliyaan looga istaago loogana sacbiyo. ciyaaryahan Luis Suarez ayaa kooxda kubadda cagta ee Barcelona ka dhaawacmay, waxaana laga cabsi qabaa inuu ka maqnaado kulanka ay kooxdu horyaalka qaaradda Yurub kula kulmayso kooxda kubadda cagta ee Manchester United. ugu dambeyntiina kooxaha kubadda koleyga ee Philadelphia 76ers iyo Milwaukee Bucks ayaa kulan xiiso badan habeenkii xalay u dhex maray, waxaana guusha 130 iyo 125 ay ku raacday kooxda Philadelphia 76ers. labadan kooxood kubad qurux badan ayay soo bandhigeen. ciyaaryahan Giannis oo ku duushay kooxda Milwaukee Bucks ayaa waxa uu dhaliyay 52 dhibic, laakiinse 40 dhibcood oo Embiid uu dhaliyay ayaa guul u keenay kooxdiis. labadan wiil oo ka soo kala jeeda wadamada Cameroon iyo Nigeria ayaa ka mid ah xidigaha haatan lagu jecel yahay NBA-da, waxaana dhowrka sano ee soo socda ay noqon doonaan kuwa inta badan aan kala harin oo isardin doona. waxay haatan labadan kooxood Milwaukee iyo Philadelphia ku kala jiraan kaalimaha koowaad iyo saddexaad oo Milwaukee Bucks iyo wiilka reer Nigeria ayaa hogaaminaya horyaalka NBA-da ee xilli ciyaareedkan oo 52 dhibcood ayaa kooxda Milwaukee ay leedahay. daawadayaal inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkeennii tan iyo kulan dambe oo mascado idila sida iyo nabadgelyo. intaasna waxaa ku eg barnaamijka qubanaha maanta oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah Ridwaan Xaaji. inta aynu kulmi doono haddii eebaha wada leeyahay berito nabadgelyo.